السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلكين بهاوين ونكسن كسور هذا برنامج قارة ونحلي دونا على الضفار ديبكي كوقبت كوحدة مانشستر سيتي على الضفار. waxay soo saartaa waxyaaba ayna qaban isha garsooruhu laakiin waxay si taas ah isaga inay tirtaa khaladaadka laga galo kooxda Manchester City. waxay sababta aalada caawisay garsooraha VAR ugu soo horjeeda Man City mala sameeyay kooxaha kale Premier League cadaalad ma ka jirtaa feegay VAR. daawadaal waxaanu ka hadli doonaa aalada VAR ee dibka ay ku qabto kooxda Manchester City. adeegsiga VAR ee Premier League wuxuu bilaabmay xil ciyaareedkan hadda socda. aalada VAR markii la rabay in laga hirgeliyo England waxaa la qabtay shir laga hadlayo ee ka qayb galeen 20 tababare ee kooxaha ka dheelay heerka koowaad. si cad ayay u diiday kooxda Manchester City in la hirgeliyo adeega VAR laakiin maadaama ay ka cod bateen kooxaha ogolaaday waa la hirgeliyay aalada VAR. sidaad wada ogtihiin kooxda Manchester City waxay EPL ka qaaday labadii sano ee la soo dhaafay haddii ay sanadkan ku darsato waxaa dhacaya in Premier League hoos u dhac ku yimaado oo xiisihiisii luma. taas ayaana ku kalifaysa eega in ay ka soo horjeestaan Sky Blue. aalada VAR waxa ay soo saartaa waxyaabaha ayna qaban isha garsooruhu laakiin waxay si toos ah isaga indha tirtaa qaladaadka laga galo kooxda Citizens. ma jirto koox aan ahayn Manchester City oo dhibaato ku qabto VAR. waxa indhaheenu qabanayaan oo aan arkayno in ay VAR soo saari weydo macquul maaha laakiin waa in si kas ah loo diidan yahay. nasiibku wuxuu taageeraa xaqa waan dagaalamayna ilaa dhamaadka.